soo dhawaada jaalayaal. Waxaan rajaynayaa inaan halkan ku soo bandhigi doono sahanka taariikhda suugaanta Soomaaliyeed haddii eebba idmo. La socod wanaagsan iyo ka qayb qaadasho aan kala har lahayn. Suugaanta Soomaaliyeed waa mid hodan ah oo soo taxnayd qarniyo badan uguna fadhiday bulshadeeda miisaan culus, dhinacyo badanna taabanaysay. Waxaynu leenahay dhaqan, siyaasad, diin iyo halgan. Bilowgii suugaanta Soomaaliyeed waxay asalkeedu ku xidhan tahay dhaqanka afka ee Soomaalida. Qabiil walba wuxuu leeyahay abwaano iyo gabya gaar ah oo suugaanta ku cabiri jiray dhacdooyin nololeed sida dagaalada, nabadda, jacaylka, geerida iyo guusha. Afka hooyo suugaantu waxay ku fiday af Soomaali ahaan iyadoo aan lahayn qoraal rasmi ah ilaa dabayaaqadii qarnigii 20aad. Gabaygu wuxuu ahaa nooca ugu sarreeya ee suugaanta. Waxaa loola jeeday hadal miisaan leh oo murti iyo xigmad lagu dhisay. Suugaanta xilliyadii hore waxay ahayd mid ay ka muuqato dagaal iyo geesinimo, sida gabayadii aad ka dheehan kartaan Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo gobonnimo iyo diinta u adeegsan jiray suugaanta. Suugaanta Soomaaliyeed waxaa ka mid ahaa sheekooyin, dhaqan oo laga dheehan karo anshax, dhaleecayn iyo tilmaamo bulsho. Suugaanta xilligii gumaysiga, markii ay dhacday gumaysigii Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Itoobiya, suugaanta waxay noqotay qalab halgan. Abwaanada Soomaaliyeed waxay si suugaan ah u cambaarayn jireen gumaysigii iyo dulligiisii. Heese wacyigelin ayaa soo baxay. Waxaa bilowmay heeso iyo maansooyin bulshada ku baraarujiya halganka iyo dowladnimada. Suugaanta xilligii madaxtinimada 1960 ilaa 1990kii, xorriyaddii kadib, suugaantu waxay noqotay mid furan oo ku cabiraysa dowladnimo iyo horumar, jacayl bulsho iyo siyaasad cusub. Fahanka casriga waxaa bilowmay isticmaalka muusiga, telefishinka iyo idaacadaha lagu baahiyo suugaanta. Qarniga waxaa caan baxay fanaaniin iyo abwaano waaweyn sida Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, Xasan Sheekh Muumin, Cabdi Muumin Aamiin, Sahre Axmed, Xalimo Khaliif Magool, Maxamed Mooge Liibaan iyo malaayiin kale oo aan la soo koobi karin. Suugaanta qurbaha iyo qarnigii 21aad kadib burburkii dalka 1991dii, suugaanta Soomaaliyeed waxay u qaxday dhanka iyo qurbaha. Suugaanta qurbo joogta, abwaano iyo fanaaniin badan ayaa suugaantooda ugu talagalay in ay kobciyaan dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed ee jiilka cusub. Waxay soo saareen heeso iyo riwaayado badan, maansooyin cusub oo la jaanqaadaya waayaha cusub, taariikh, dhaqamo isdhexgal ah iyo nolol magaalo. Noocyada suugaanta Soomaaliyeed. Suugaanta Soomaaliyeed waxay leedahay noocyo badan oo aad u kala duwan, aanan la soo koobi karin, balse waxaynu soo qaadan doonaa qaybo ka mid ah: gabay, geeraar, hees, maanso, baraambur, saar. Gabaygu waa miisaan culus, hadal dheer oo xigmad iyo murti leh. Geeraarku waa gabayga oo gaaban, hadal kacsan oo badanaa dagaal lala xiriiriyo. Hees waa suugaan laxan leh oo muusiga lagu laxameeyey. Maanso waa hadal miisaan leh oo aan qaad lahayn sida gabayga. Baraambur waa gabay dumareed si gaar ah dumarku u tirin jireen. Saarku waa suugaan ciyaareed oo dhaqameed ah, badanaana aroosyada iyo munaasabadaha ayaa lagu soo bandhigi jiray. Gunaanadkii, suugaanta Soomaaliyeed waa dhaxal suuban oo mudan in la ilaaliyo, la barto, lana sii gudbiyo. Waa hanti qaran iyo astaan bulsho oo kubcin karta aqoonsiga iyo isku duubnaanta Soomaaliyeed. Waxaa idin leeyahay la socod wanaagsan. Waxaan rajaynayaa inaad igala qayb qaadan doontaan dib u soo noolaynta taariikhda iyo sooyaalkii Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin.